Alla u naxariistee waxaa maanta geeriyooday mid ka mid ah halyeeyada kubadda cagta ee dalkeena Soomaaliya, waxaana halkan tacsi tiiraanyo leh ka diraya dhammaan ciyaartoydii hore Squadra della Sabito oo ay markaasi ku mideysan yihiin. Waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh ugu diraynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan qoyska iyo ehelada uu ka geeriyooday halyeeygii weynaa Alla u naxariistee marxuum Cabdiliina oo ka tirsanaa kooxda xoogga dalka ee Horseed Caawiye Maalin iyo sidoo kale xulka qaranka Soomaaliya. Marxuumka ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Cadan ee dalka Yemen oo ku noolaa kadib burburkii Soomaaliya ee ka dhacay. Squadra della Sabito halyeeyada nabadda ay ugu horeeyaan halyeeyada kale ah Maxamuud Cali Xasan, Cabdifataax Turki, Axmed Cali Culusow, Axmed Hilowle, Cantar Xasan Islow, Cumar Ganjab iyo dhammaan inta ka tirsan Squadra della Sabito oo qayb weyn ka yihiin ciyaartoyda. Magaca Squadra della Sabito oo ay markaa lagu soo koobi karin ayay tacsi u dirayaan marxuumka, ayaana waxaa Alle ugu baryayaan in naxariista Alle ee qabriga u waasiciyo, dembi dhaaf iyo jannatul firdaws aclaa inuu Ilaahay ka waraabiyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun.